بريهم بمانارك قبل كي بالله اللي قبل من تين سنة كبر واقع فانكا إيران كمان مرين كمر بلدي يهوضو برواقع بريهم عند الحيس تين بريهم بمانارك قبل كي بالله اللي قبل من تين سنة كبر واقع فانكا إيران كمان مرين كمر بلدي يهوضو برواقع بريهم عند الحيس تين بل قبل إنو يهي فرله نقاديو ميل برواقة الله أنكو بياشي قربة شوك برسوارك أنكو بياشي قربة شوك برسوارك أدي لودي برفكي أدي لودي برفكي حسوسنا يا دايرتا يربان حسوسنا يا هيستا إمك ميسيكا من مقشيي وحا أساسي وحا لابوري إلهي هونا حريستي أبوان كيوينا حسن شيخ صوتا مروسا معي حسن شيخ مؤمن وحواني ريبو رما سيدا تاريخ لهوغو هيا بوغاكتين أنا نكو قرانتي منفليا سيئنو حفلة دو بلابرنو وحان هلقاني مكوغو يريا كسيما دوقا مقالة أنا كحيجين كدوخة مقالة موليد جامع يوسف سيو كلمتي فرتان قال كانوا قيدا كنا الله يا أفكا ماير كدقمة بالقبلة كنا الله يا أفكا قولها ديجان كدقمة بالقبلة وحنا كان دمانك السلام يا ماير كواحد قدوميها قبل كهود بريساب كحيجين كا والسير هذا رمان برشة هذا كان يسقط تمد نفتو ذا وصور ديبتي بعد كوتاجن halkan bacadka u taagan waxa wax ka daranaya dhulka la soo maray inta maanta ku fadhiyaan wax ka qaalisan ayaa ka dhacay waa meydii waa maalin qaaliya waa maalin ciida waynu u samarnaa kuleelka dhibta mid walba loo samraya dad baa u naf waayey dad baa dhiigoodii u shubay hala samro meydana maaha wax fudayd inagu soo galay qiimay inagu joogtaa qiimeyn ugu joogta hal qiimeeyo waana maalin ciida oo culus nin walba waxaan leeyahay noo ansixiyey maalinta qaaliga inaanu xusitaankeeda maalin kasta iyo sanad walba aanu u bareerno oonu madaxa u dhigno oo bulshada reer somaliland ay aada u qiimeeyaan salaan dadweyne kaloo akhyaara golaha deegaanka runtii waxaan qirayaa anigoon ka mid ahayn runtii dadkii xafladan soo qabanqaabiyey inay xaflad wanaagsan oo qurux badan soo qabanqaabiyeen aad baan ugu mahadnaqayaa hadalka cabdiraxiin cabdilaahi yuusuf baa lahaa inuu qaato laakiin wuxuu yidhi waan xabeebtay iga qalleeya buu yidhi markaa waynu ka aqbalaynaa laakiin waynu u mahadnaqaynaa meel kastay joogaan guddida xafladan soo diyaarisay intaynaan xafladda haddaba gelin waxay nala joogta koox fanaaniin ah waxaan siinaynaa heeso dhex halkii lagu aasaasay weeyaan taa iyo tafaasiil
maanta meel kastoo ay joogto Soomaaliland u dhalatay meel kastoo ay joogto ay ka dabaaldegayso dabadii gudow waanu salaamaynaa waxaan ugu salaamaynaa magaca gobolka Hawd waa caan waa la yaqaana waa halkaan ka bilaabmay kuna dhamaaday waxay la tahay ma aha taariikh beena cidii wax qabtaan oo soo joogi kartaa marka anagoo magaca ku salaamayna ummadda reer Soomaaliland khaasatan madaxweynaha qaranka Ahmed Maxamed Siraayo iyo dhammaan 18 May waxay ku yimaadeen tabaraalka iyo fanaanadooda taabatay waa maalin qaali ah adduunyada waxay lahayn abuurayna gaariga islaam cidoo maalin bay leedahay ama ay xustaa ama ay u dabaaldegtaa maanta waa dabaaldegista 17 May 1999 waa maalintii calanka burco laga taagay waa maalintii aanu iska tuuray keenii dee inaga dhintay ee dadka ku dhacay dhehdankii soddonkaas sannadood markii laga xisaabtamay ee dhibaato mooye dheef laga waayay waa maalintii ummadda reer Soomaaliland bari iyo galbeed ilaa min Saylac ilaa min Laasqoray ilaa min bari galbeed Hawd meel kasta ay joogto waa maalinta ay xornimadeedii la soo noqotay waa maalin qaali ah aqoonsiga ay ka maanta ma aha maalin siyaasadeed mana aha maalin kale wax kale laga hadlayo waxaynu u dabaaldegaynaa 18 May ummaddana aynu ku soo dhawaynaynaa waxaan ku raahdaa ciidamada madaxda ciidamada dadweynaha odayaasha fanaaniinta baada saxaafadda iyo inta kale ee ka soo qayb gashay ee meel walba uga timi ee halkan danaysay inay ku qaataan maalintooda 18 May ee ah in loo dabaaldego qarannimada Somaliland waxaan leeyahay waa salaamaya Somaliland ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ha noolaado golayaasheedu ha noolaadeen shacbi weynaha reer Somaliland ha noolaado waxaan idiin sheegayaa maanta inaynaan u baahanayn oo heestaa inaan ku qaadayay marka aan dib ugu soo laabto waxaan leeyahay dhabarkaa nagu daalay xamar dhabarkaa nagu daalay dib u qaadi mayno mana doonayno waxaan leenahay war iska qanca naga qanca kelmad keliya ayaan halkan ku soo dhaweynaya waxaan leeyahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya anigoo ku hadlaya afka gobolka dadweynaha shacbiga dhalinyarada ubaxayagan halkan soo fadhiya iyo dhammaanba afka Somaliland dhalinyarada joogta waxaan leeyahay waxaan halkan ka soo dhaweynaynaa muddo kordhintii loo kordhiyey xukuumadda Somaliland si ay u sii wadato hawlaheeda doorasho aad baan ayaan u soo dhaweynay madaxweynahana waxaanu leenahay doorashooyinka wad ha baqanin waad geydaa in lagu kordhiyo 10 bilood iyo 10 sannadoodba ha baqanin fulaynimo kumaanaan aqoonin dee fulay ha noqonine hawsha wado walaalayaal maalintu waa maalin weyn wax kale looma baahna waxaan aad leeyahay ubaxa halkaa fadhiya ogaada taariikh badan baa jirta taariikhda badan ee jirta oo gobolkani leeyahay ee uu la wadaagayo maxaan ku dhahdaa jamhuuriyadda Somaliland hooyana ugu ahaa waxa weeyaan waa goobta halgankuna qiimeyn fara badan bay leedahay maanta oran mayno nalama qiimeyn nalama muunayn gobol baaba layna siiyey gobolnimadeennana innagaa soo saarayna waanaynu ku kalsoonnahay xukuumaddeennuna waynu ugu barbar taagan tahay waynu shaqaysanaynaa waxaaliyaalo waxaynu uga baahannahay miyaa garanaysaan deeqbixiyayaasha la sheegayo deeqbixiye ilaahunbaa deeqbixiye deeqda ilaa allah bixiya innagu deeqbixiye ninkaaloo caddaana ma doonayno haddii uu farageliyo dowladdeenna iyo arrimaheennana systemkaynu inagu dhiganayno ayuunbaa ka soconaya uu iska hadlaya hambalyada 18 May run ahaantii waa maalin qaaliya waxaana run ahaantii doonayaa inaan horeyn aan halka ka salaamo madaxweynaha sharafta leh ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Ahmed Maxamed Siraayo iyo xaaskiisa ugu hurnay waa maalin aynu ku iibsanay nafteenna sidaynu ula soo noqon lahayn xorriyadeenna waa maalin inaga mudan inaynaan ku dheeldheelin aynu ka sheekayno dhiiggii daadanayey
iyo murqihii go'ayay halbowlayaashii soconayay ee lagu soo dhicinayay qarannimada Somaliland waxaan aad iyo aad idinku mahad celinayaa inaynu mar walba heegan u ahaano oo aynu ogaano inaynu ku soo helay dhayal aanaynu soo galin dhiig inaynu soo gashay dadka reer Somaliland intooda faraha badan leh way og yihiin maalintan inay tahay maalin qaali ah inay tahay maalin xusitaan mudan laakiin dadka dhalinyarta ah ee imaka koraya waa inaynu mar walba taariikhda u gelinaa iyo buugga oo aynu xagga hore kaga qornaa manhajkeena lagu dhigayo cidii iyo maxaa la yiraahdaa halkii aynu u soo marnay iyo dhibtaynu u soo marnay hadalku iyo waqtigoo gaaban waxaan ku soo gabagabeynayaa Somaliland ha noolaato daryahanba maahan arag gobolkii bilaa balligubadle maan tegin u joognaa inaanu idinla dabaal degno oo aanu idinla xusno xuska maalintan qiimaha badan leh waxaa ogtihiin inuu xuska masalan imika qofka maalinta jaamacadda ka qalin jabisay waa xus adiga kuu gaara maalintii aad dhalatay xus adiga kuu gaara maalintii laga yaabaa in maalmo kalena dadka qaar ay leeyihiin ama maalintii uu arooska ah ama maalintii maalin walba laakiin maalintani qof keliyaatiis kama laha waxay ka dhaxaysaa 3.5 milyan waxay ka dhaxaysaa 3 milyan iyo badh qof ayay ka wada dhaxaysaa marka waxaad arkaysaa inay tahay maalin dhammaanteen 6 gobol ama 13 gobol Somaliland baa idhaahdee ka wada dhaxaysa inay tahay maalintani waxaan halkan doonaynaa markaa annagu aqoonyahankii dalka in aanu halkan fariin uga dirno walaalaha iyo Soomaaliya oo aanu leenahay waar waxa weeye deejiidaan ku jiiday waa gacmadaalis mararka qaar waad yaani madaxa ku xanuunaya oo waxaad yaabaysaa waxaad arkaysaa inay dad riyo ku jira yihiin waxaad arkaysaa iyagoo sheeganaya Somaliland waxa laga yaabaa qaar badan inaanay weligood imaninba oo aanay cagaha soo gelininba haddana waxay ka oranayaan Soomaaliya ka mid tahay taasi waxa weeye yaani waa raganimo daro waxba la isu qiraa waar wax noo qira anagu xumaad lama ogelin ilaahay dagaalada ay ka qaboojiyo ilaahay dalkiina ay dejiyo laakiin anagu xornimada aanu marka hore horta yaa la idin qaldin Somaliland iyo Soomaaliya ma aha dad kala go'ay marka horeba isku dalmay ahayn marka horeba waxay ahaayeen laba maxamiyadood oo midna Ingiriisku guumaysan jiray midna uu Talyaanigu guumaysan jiray markii dambe inaga ayaa fududaanay oo aan yaahdana fudayd buu ahaaba markii dambe waa la ogaaday inuu fudayd ahaay inaga ku biirnay oo nidi midoobaanu doonayna Soomaali baan isu keenayna waxa la isu keeni karin baynu isu keenno waar Soomaalida qaar walba inay meeshooda ku ducaystaan baa la qaatay Soomaalida Djibouti way iska nooli Soomaalida Itoobiya way iska nooli Soomaalida Kenya way iska nooli annaguna waanu iska noolaanaa halkan maanta waxa weeye xaflad qaaliya waa aydiin may halkan aniga farxad gaar ah bay leedahay dadka in yar baan xasuusinaya da'dii ayaan imika ku jira tagiradayna way joogaan maalintan qaaliga ah quruxda badan sida fiican loo soo agaasimay dhalinyarada aan aabbayaasha u ahay adeerada u ahay halkan waxaa ka noqday halgankii ururkii SNM markii halkan la asteeyey in laga dhigo ciddii ugu horreysay ee qabanqaabinaysay ayaa ka mid ahaa maanta raggii halkan bandhigwada saaska u dhigay way wada dhinteen maayarka aabbihii baan la fadhiistay rag badan oo halkan fadhiyaa waan iyaguna way nooyiin halkaasay ka muuqdaan dhulkay fadhiyaan oo way isgaabinayaan waa raggii halkan ka shaqeeyey samriya ka mid ahaa caliyana ka mid ahaa maxamed ismaaciil baa ka mid ahaa rag fara badan maxamed aadan galow baa ka mid ahaa raggii way leedeen ilaahay waxaan u baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo maalintaas maalintii halganka ayay ahayd maalintii balugubadle la gubayna halkan ayaan joogay waxaan u ekaaday cabdiraxmaan tuur baan u ekaaday maalintaa xabadda ayaga lagu riday shir baan halkan ku qabannay aniga iyo ibraahim sheekh iyo aadan dheere iyo cali awjaamac 25 qof baan meel isugu keennay waxaanu maalintaa shirkaasu ahaa in ciidamada oo mitirka jooga ayaa halkan aan ku maqalay inay soo weerarayo nalama dhegaysan sidaa darteed qadar bay ahayd shawaaba la xoroobayaba faqashta halkan timi in la xorooba bay ahayd sidaa darteed aydiin may ayaa laga abuuray burco
sidaa darteed waxaan dhammaan jamhuuriyadda somalilan ee daafaheeda kala duwan waddanka galbeed ilaa bari hambari ayaan u dirayaa halkan waa halkii hooyada ahayd waa hooyadii halganka axmed maxamed maxamuud siiraanyo kayntan u seexday asagana hambaryaan u dirayaa dhammaan mujaahidiintii oo dhanna hambaryaan u dirayaa ciidamada amniga ilaalinaya ee halkan jooga ee dalkoo dhanna jooga waxaan u dirayaa hambaryaan u dirayaa haddaba maalintan qaaliga aynu neecawda walaagsan ee dabaaldega aynu ku dabaaldegayno waxaan leeyahay dhallinyarada maanta soo kacaysay waxaan idin leeyahay tahriibka iska daaya tacliinta dhigta inankaygii idinka idinla daahaa balligubaduu ku dhashay maalintaa balligubadle halkan lagu gubay wuxuu jiray 5 maalmood scholarship buu ka helay dalka gadan asagoo somaliland matalayo waa maalin weyn oo aynu ku dabaaldegayno sanad guuradeenii 24aad waxaan halkan idinka soo jeedin doonaa maasayaro gaaban oo magaceeda la yiraahdo madasha waxaana tiri maalin weyn weeye maanto madashana inoo taal farxad iyo amaane marwe iyo mudanaba sanad guuradeeniyo 18 May kulligiin sacabtuma waxaan maanta joognaa maalintii dalkeenu madaxiisa la kacee calankiisa la dhibee amnigiisa la sugee madaxweyne qaraniyo maamul gaara yeeshee marwe iyo mudanaba sanad guuradeeniyo 18 May kulligiin sacabtuma ummadii dalkaygay calankaa dhammayskee ku dhigay tawxiidkee dhulkeenna ka lushee dhagaankeennu harsanayo dhayalkumu imanine dhiig baa u daato maal baa u burburo nafaa u dhintee marna yaan la dhayalsane sanad guuradeeniyo 18 May marwe iyo mudanaba kulligiin sacabtuma weyno madashana inoo taal farxad iyo amaane marwe iyo mudanaba sanad guuradeeniyo 18 May kulligiin sacabtuma ummadii dalkaygay ictiraafka weyn heli cisho ay ahaatee ku xamdiyo xornimadiyo xasiloonideenno amnigana adkeeyo sanad guuradeeniyo 18 Mayna kulligiin sacabtuma aynu joognaa watobaniyo 8 tawxiidkan calanka leh taabka aan ku qabanay cadowgii la tuuray hornimadu istaagtee shacab iyo naf loo reebayay tumaneen kumayaal la toogtaa naftoodii u tuugee kumayaal tukubayaa dhaawicii naftiire kumayaal tukubayaa dhaawicii naftiire ayalmi dhiig baa ka tibibee ayalmuu ugu toosine kamar male qabyaaladii ka taxraarad mooye u tashada dantiinoo isku tiirsanaada wixii alla kula damaan cimina ka daadinine ogoobay darajadana ilaahbaa soo dejee dalkani booliisku taag ictiraafkii waa diyaar ninkii kala daadine nimcada loo diigalow sidaan ku dirayo marka waa ku diyaar ilaahay hadayo waqtiga waa sii dulkay madaxweynaha dalkuna wuxuu ku dadaalayaa dalkiisu siduu u helo waxay dawladi lahayd qabiil wax ku doqoshiyo qabyaaladu waa duliye intaa la iska daadiyaa hogaanigu wayadaraa dabooda lagu xidhaa sharciga dalka loo dhigiyo dastuurka lagu dariiqa ilaahiyo sadiida la xoojiyaa
دلنا ويوني أبغى تضعف كتاي لكن توصل نمالك على دادرو سيران كل عينيو مدعوة وضيار بشر ودولة يلاين تينيسي أولوكم أنتم عصيو أولوم لدي طليو تراويشيو بليس أياسن كتيرانو إريس ولا سيطا دكتورو وچيه تاريخ حراشيو لكان كيمين كسكتين ولا تلقوا دويو كاترين هدو وقتيا أرغب صنون هرقلينين مركان ليحدنكي هالمامي أرغب صنون هرقلينين مركان ليحدنكي هالمامي مركان حمر وهيامي مركان حمر الرئيس كديدي هالقولا ملكوين وعي حدمي قجدي نكان هوتي ولا موصلها كاتم هكوكو دخول عيال مركان هذا كداي إتان هرمان برسلي مركان كقاتين مركان ما كانوا هاي ألا نهيو أسيدي وعن غصلي وكاهم عند الشيء هذا لا تفتيو لبعض الرجاليو إليه يتابطنا بعض الصحافة دمان شعب وينان يسوق صوب حيد بالدقة مالتها قرنمة الصومالي الآن استديو تبان كمي يقول كان هود ما تكرد عيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتك كديب سيدي رقيقور يا شاقان ما أنت مدى شرعي مجوبنا ما مدى سياسات ومدى فرحات ومد سومالي لان أردن مقالو مي تولو حافظ ميل والبلوغة دبالدقيو وصيدنا بعد كو تبنتين ميل والبلوغة دبالدقيو مركا فرصة إنه ما تهوني وحوية إنه يسكوها بليينو كان قيب قادرنو دبالدقة قرنمة السوماليلاند قرنمة السوماليلاند انت وينوا قرنيسا لكن سو حلمنا اليرد waa ku maqal haraa laynooga soo sheekeeyay waxa lagala soo baxay gobonnimadan markaan dhalinyarada u cabiro libaax afkii nin ka soo qaatay weey waxa jirtay gabay uu tiriyay Allahu naxariistay cabdiidan oo ay ka mid ahayd duleed lagama qaadin iyo walba sida meel cidlaaye gobonimada meel iyadoo libaax daalin iyo aar dalqadi taala gobonimada meel durugsan baa loogu daadegay meel aan idin qiyaasi karayn oo ayaa laga soo taasay dadka loo soo dhicinayay ee la doonayay inay hantaano waa dhalinyaradiinan soo kacaysa marka ina fahantaan inaanay nagu dhaafin qosol iyo dhayal oo halkan aan farxad u laysugu iman micnaha aynu u dabaaldegayna la fahmo inay calankan aynu harsanayno iyo gobonnimadan aynu haysanno maanta ay tahay maalintii la soo helay ee lagala soo noqday gumaysihii labaad ee Soomaaliya walaalka mooday oo gumayso labaad nagu noqday aynu ka soo dhacsannay ay ahayd taas waxaan jecelahay inaad sidaa u fahantaan marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa marka u horeysa dadweynaha Soomaaliland gudaha iyo dibadba ee maanta u dabaaldegaya qaranimada Soomaaliland raadinayeen laakiin wax maanta kana si wanaagsan ma ana wada farxadii inkastoo ay dhimay iga dhex gashay ee maanta waan ku helo hada dawlad waxaan ku yiri dawaarno in orta guurku waxa wanaagsan weey 18 meeyo rawan ka lumay Soomaha maanta way joognaa Soomaha daawin sarosina 18 meeyo waxa soo calan xidha Sooma arkiisi ayaa caawaroskeena ka soo qayb galiyay maawadan waxaan calanka Soomaaliland lahayn aroskeena kama soo qayb galayaan iyo farxadeena midnaba dawaasa ya
maalinta 18 May waxa kale oo leeyahay waar dadweynuhu magaalada caasimada ee gobolka Hawd hadistaan cashuurtana ha iska bixiyaan baan leeyahay gobolka waxa lagu dhisi karaa waa cashuurta oo la bixiyo waana mahadsantihiin barwaaqada kullu waxa la gaaraa horumarna la gaaraa meelna la hiigsadaa marka la aqoon hesho haddii aanad aqoon lahayn meel gaari maysid runtii waxa jirta oo aan doonayaa maanta halkan inaan si toos ah uga caddeeyo wasiirada iyo madaxda in xafiiska jandarkan xukuma uu kaalin lixaad ka qayb qaatay gobolka Hawd gaar ahaan iskuulka dugsiga hoose ee primary-ga Faarax Nuur Primary School runtii sideen wada ognahay waxbarashadu iyadoo tahay furaha nolosha haddana waxay wasaaradda waxbarashadu ku dhiiratay inay bixiso gobolka scholarship saddexdii hablood ee ka soo baxay dugsigii sare ee sanadkan qalin jabiyey sidoo kale biyo la'aan baa laga cabanayay wasaaradda waxbarashada xafiiska jandarku wuxuu ku guulaystay inuu xafiiska primary-ga inuu maxaaday lagu aasaaso water maxaaday ceel weyn oo biyeed sida biyaha uga cabi lahaayeen iyo solar lampis sida ay waxbarashada ay u sii wadan lahaayeen oo habeenkii markay ku jiro ay ku baran lahaayeen iyo dhammaan baahiyihii waxbarasho guud ahaan gobolka Beledweyne iyaguna waxaan ognahay macallimiin aan iyaguna tiro badan oo laga guuleysiyo wasaaradda ama mashruuca GPE Global Partnership Education oo iyaguna xafiiskan maamula mas'uul ka yahay iyo guud ahaan bilood bardin magacaawna labadii bilood wixii kaliya inoo qabsamay oo ah wax qabadka dawladda maanta inoo qabatay ayaa wax yar kooban idin ka taabanaya wax qabadka waxa ugu horeeyay 20 cisho ka hor baraka ka baxay markii la magacaabay sidaan markii 20 cisho ka hor baraka ka baxay waxaan tagay caasimadda waxaan la kulmay wasiirro badan oo ugu horeeyo wasiirkeena awqaafta wasiir Khaliil wasiirro badan oo aan markaa martiyay oo aan ka martiyay 7 sano u dambeysay secondary-ga salaxlay oo gobolka Hawda iyo secondary-ga Beledweyne oo gobolka Hawda dhalinyarada ka soo baxday kuwa ku jira markay arkeen kuwa ka soo baxay gidaarka fadhiya oo balbaleed ku cunaya ayay ku jireen in jabal waxa laga qabto taariikh u diyaar garoobay waxa laga qabto wasiirro badan taliyayaal ciidamada ah oo taliskayada guudaha intuu ay ka soo aqbaleen in investment la idin sameeyo oo la shaqaaleeyo oo waxa laga qabto inta ka bacdi waxa la ku ballanteed ay tahay bishan imika markay dhamaato inay hawsha galno rag iyo dumar waa ku jirtaan ma dhalinyarada kaliya nimada kaliya wax qabadka labaad xukuumaddu waxay inoo qabatay annagoo ka wada socona baran maayirkeeni maayir guray ama cabdi inaan jaamac wax qabad badan baan iyo barasaa ka hor isla kaashan wax qabad badan baan idin soo taray oo ay kow ka tahay ambalaas aan hore inoogu oolin gobolka oo 7 degmo xukuma oo musheen halka marka la qaaday dhexda dhiiga ku sii dhaxbaysay ama ku sii dhaxbaqtiyeysay inaan balaaskii oo forward drive waxa la kala qaar yar oo nuuha marka nuuhadii waa laga joojiyo waxa la meeyda lagu marayaa laakiin meey kadib waxa la siinayaa gaari haar toba oo forward drive waxa qabadkii xukuumadda koow inta jooga kaasawa waxa kale oo xukuumadda intana joogay bala qaaday ceelkii biyaha oo halka riigii lagu soo aasayo oo wasiir dawladda maanta inaga joogo oo isagu u ka faalfaalan doono waxa qabadkiisa iyo sidoo loogu bilaabayo waxa kale oo ay qabsanay oo xukuumaddu inoo qabatay waxa qabadka dawladda saxaafadda oo halgankii waynu ku jiraa kii dib u xoreynta aynu soo maray kii jamhuuriyadda ee qaranka aynu noqonnay kii waxa weeye ictiraaf raadiskii baynu weli ku jiraa waynu ku guulaysanaynaa isagana insha allahu saxaafadda oo meel wacan kaga jirta runtii ayaan aad iyo aad u salaamaya aad ugu hambalyaynayaa waxaan runtii aan dib ugu noqonayaa aydhiin maydo waxa dhalay halgankii baa dhalay astaantii halganka ama guddoomiyihii markii waddanka dagaalka lagu soo galay ilaa haddaan dagaalkaa lagu gelin maydhiin may timaadeene oo iminkana talinayo hoggaanka qaranka baan aad ugu hambalyaynayaa runtii guddoomiyihii u horreeyey
markii waddanka ilaahay ku guuleeyay ee qabtay oo caawa inaga hooseeya hambalyadiisa waxaan uga dhigayaa ilaahay u naxariisto cabdiraxmaan axmed cali wuxuu hadday guddoomiye eesaname gaadhigiisii halkan lagu qabsaday oo isagaa galay oo ilaahay wuu ku guuleeyey ilaahay ha u naxariisto hambalyada waxaynu uga dhigaynaa in naxariista jannaalaha ka waraabiyo waa madaxweynuhu horreeyey somalilan madaxweynihii ku xigay ee somalilan dowladnimadeeda dhidibada u aasay waxaynu isna hambalyo uga dhigaynaa maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay ha u naxariisto isagana naxariista jannaalaha ka waraabiyo daahir riyaale kaahin oo la odhan karo isna xagga amniga ee security-ga dalka ayuu dhidibada u aasay isagana ilaahay ajir iyo xasanada ka siiyo waa nool yahay madaxweynaha maanta marka dhinac laga eegana waa astaantii halganka qaranka marka dhinac laga eegana waa astaanta qaranka maanta runtii labadii xilba uu huwan yahay waxaynu leenahay ilaahay isagana xajar iyo ha siiyo hambalyaynu u diraynaa isaga iyo xaaskiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa saylic iyo xaaskiisa marwooyinkooda madaxdooda kale ee qaranka la shaqeynaysa wasiiradooda iyo inta kale ka agdhow iyo inta wakiilada waa hambalyaynu u diraynaa bilayska iyo ciidanka asluubta labada ciidan ee heeganka ku jira xaggii nabadgelyada ilaa intii ku jiray ilaa maanta bacadka taagan idinkay saraakiisha nabaad baan u mahad celinayaa kelmadayda midhiyo waxa weeye aan maanta odhanaya iyo waftigii dowladdana inala jooga sida halganku astaan shakhsi u leeyahay ee qaranku u leeyahay shacabkuna astaan buu leeyahay markaa shacabka gobolka hawd weeye astaanta shacabka somalilan waayo iyaga halgankii horena ku hayay bahasha markii dambe dowladnimada la taagayana jawaabtii ugu horreeyay iyagaa bixiyey markaa runtii kelmadayda markaa maanta media waxa weeye inuu shacabka gobolka hawdna u yahay astaantii shacabka ee heer qaran inuu yahay aad iyo aad baan idiin salaamay gobolka taalla inay tahay biyaha taasna maadaama aanu nahay wasiiradii dowladda aniga iyo khaliilba wasiirka biyaha iyo wasiiru dowlaha wasiir iyo wasiiru dowla leedahay wasaaradda biyuhu labadaba waanu la fadhiisanaynaa oo fariintaa aadna farteen sidaa aad noo farteen baanu la qaadanayna insha allah waxna waa laga qaban doonaa taasuna waa waxaan idinka ballan qaadayaa fariintaa ay farteen ee ah biyaha waxbaa laga qaban doonaa insha allah dee siyaasadda dowladdu way cad tahay oo biyaha ha noqoto xanaanada xoolaha ha noqoto dhallinyarada ha noqoto waxbarashada ha noqoto mid walba in la horumariyo way ka go'an tahay dowladda markaa baahidaas maanta iiga soo baxday halka baahida koowaad inay tahay biyaha tahayna waanu ka dadaalaynaa waxna waanu ka qabanaynaa insha allah waanu gaadhsiinaynaa wasaaradda ku shaqada leh ta kale waxaan jecelahay halkan inaan fursaddan uga faa'iidaysto oo aan hambalyo uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo marwadiisa aamina waris iyo dadweynaha reer somalilan ilaahay kuwana ha u naxariisto dembigana ha dhaafo kuwa noolna ilaahay subxaana ha u gargaaro ee naafada ah ee weli dhex jooga ee wax badan loo qabanin haddii la xusayna aan wax badan loo tarin waxaa kale oo runtii halkan aan hambalyo gaara iyo duco uga dirayaa hooyooyinkii ku goblamay iyo aabbayaashii ku goblamay iyo dhallinyaradii ku agoomooday ama ciyaalkii ku agoomoobay halgankaas iyo farxaddaa maanta aynu joogna rag baa iska lahaa intaa dantaa kaga soo baxo waxaa runtii maanta ay halkan u nimi inaynu xusno maalin nagu wada qaaliya maalin nagu weyn maalin maxaan ku rahdaa ilaahay subxaana cid waliba maalin bay leedahay maalinta maanta ku xardhan taariikhdeenna aan duugoobaynin insha allahu oo ah 18 May ama 8 May oo ah maalintii laysku tashaday lala soo noqday xorriyaddii iyo madaxbannaanidii ay sida fudud inooga baxday ee inooga luntay runtii kama sheekayn karo wixii aan goobjano u soo ahaa laakiin taariikhdu way qoraysaa meelo badan waanu kaga warrannay imkana bacdo kuma celinba maayo wixii naga soo gaadhay xaruntan halganka aynu fadhinay ee markhaatiga laga wada ahaa waxaa la yidhi soomaalidu waxay tahdaa nin isfaashay waa rigin isnuugtay bay dhahdaan markaa halgankan inuu halgan qaaliya ahaa halgan maxaan ku rahdaa daacada uu ahaa halgan dadkii ku soo halgamay ahaayeen dad naftooda ka run sheegay oo min gobol ilaa gobol gobolka hawd mujaahidiintu u dhalatay maanta waxay ku aasan yihiin saylac waxay ku aasan yihiin mayl meel u dhoway ku aasan yihiin laakiin mid ha la ogaado dhiiggii muxuu keenay midnimo walaaltinimo wuxuu keenay maalin gudaheed in lagu ilaawo waxaan kule wixii soo dhex maray dadkan amba ha ahaadaan dadkii u abtirsanayey
muxuu ahay ururkii SNM oo la yaqaanay oo beelaha dhexe dalka Soomaaliland u badnaa laakiin maxay taas u keentay inay markii ay halkii dhamoobay ka baxeen inay ku sadaqeeyeen horumarka Soomaaliland dadkoodii ay u sadaqeeyeen waa astaanta maanta caalamka iyo mujaahidiinta u sadaqeeyeen dhiigoodii ay ku xaqan tahay waxa looga jeedaa markaa in la mideeyo waa la walaaleeyay waa la mideeyay waxa laga dhigay dad mid ah walaal isku mid ah min gees ilaa gees laga soo bilaabo maxaan ku dhahday geeskeena xeebta bari maxaan ku dhahday ceelaayo ilaa iyo maxaan ku dhahday saylac duleedkeeda ama Djibouti iyo loo yacadusheeda intaasoo dhan ba ku weelowday waa lagu mideeyay waxa noqotay maalin ku qiimaysan nabadda iyo nabadgelyada iyo saamaxa waatan la soo saamaxay nin kastoo xoolo waayay nin kastoo ubad ku waayay nin kastoo waal ku waayay maalinta wuxuu ku ilaaway Soomaaliland isku tashatay oo noqotay diin may guul ay la soo noqdaan ayay taas u ahayd runtii maanta markaan u dabaaldegayno maalintaas waa inaan iyar xasuusanaa dadkan waxay iibsadeen nabad bay iibsadeen nabadda markaa in lagu ciyaaro maaha waa in xitaa la ixtiraamaa hooyada maanta wax kale aan filay inankeeda ku dhintay odaygeedina ku dhintay ee aan tirinaynay faraha badnaa oo maanta ubadkoodu way nool yihiin waxa weeyaan naxdin bay ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa yani wax maarta wax la yaabo bay ku noqonaysaa inay arkan dalkii u burburaya ama cid doonaysa inay ku dadaasho inay burburiso laakiinse waxaan aad iyo aad u ogahay cidda ogaata calankaas inuu saddex midab ka kooban yahay waa ka koowaad waa cagaar waa barwaaqo iyo tawxiid isku xadhan ta dhexe waa nabadgelyo iyo maxay waa tani waynu qaadanay iyo qalbi saafi oo cadana oo xasad iyo xiqd iyo xumaan soo haynin ka hooseeya liidka cas hooseeya xawuhu xasuusinaya dadka dhiigii loo daadiyay ee dalkan lagu soo gaarsiiyay halka maanta uu marayo in wali nagu jiro buuxo buuxo diyaarna rag badan u yihiin inay dib u daadiyaan haddii la isku dayo in maxaa xuduudiisa iyo goboladiisa la isku dayo in la taataabto ama la kala gooyo ama qaar ku hamiyaan inay magacyo kala duwan loo baahan Soomaaliland ahay ay la yimaadaan taas ayaa astaan u ah dhiigga caasi wuxuu diyaar u yahay inuu mar labaad iyo mar saddexaad bashubi doono daayarta maanta arkaysaana kuwa shubaya ay noqon doonaan ilaahay ka bari mayna subxaana wa tacaala laakiin hadday noqoto diyaar baa loo leeyahay baan leeyahay cidda maanta Soomaaliland hambalyo u diraya waxaan hambalyo u dirayaa gobolka Hawd dhammaan mas'uuliyiintiisa sida fiican nooga soo qaybgelay nooga soo sharfay inaan maanta la qaadano farxadaas oo aan kala qayb qaadano fadhi waana yani ma asaaska nolosha weeye runtii waxaan anigu ogahay in ay si fiican looga shaqeeyay riigii maalintood halkan laga baadhayna runtii ay gudoomiyaha gobolka iyo ay aan iska wada sheergaraynay sidii aan ka wada tashanay sidii muxuu ahaayey warbixintii aan ka helnay biyaha aan u gudbin lahayn u gaarsiin lahayn riiga oo horeeye ee lagu qodi lahaa noqdo haddii gobolada wixii maarta xadka ka sarreeya ama xadka ku siman in noqdo gobolka ka horeeya laga taago riiga haddii aan la yidhaahdo taana waa ku dadaalaynaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay riyada inoo muujiyo oo ciidda ku xigta ama maxaa maanta farxadda ku xigta inuu cabno oo magaalo qasabay ku jiraan inuu aragno haddii aan la yidhaahdo waa rajo ilaahay baan ka baryaynaa laakiin waa ku tusanaynaa waan rajaynaynaa insha Allah ilaahay inoo xaqiijin doono ugu dambeyntii waxaan mar labaad ilaahay nooga baryay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay ummadda khayr qabo inoo shubo inuu ilaahay ummadda khayr qabo inoo shubo in badan buu ilaahay inoo naxariistay inagoo siganay buu ilaahay dana mar kastana siinay imkana qaybo badan oo ka mid a gobolkeena roob uu helay laakiin mid nagu filan maaha laakiin ilaahay waxaan weydiisanay ilaahay inuu naxariisto ilaahay aan inoo qaadin dembigeenna ilaahay dembigeena iyo macsida aynu samayno qaar naga mid samaynaya ilaahay inoo qaadine in ilaahay inoo naxariisto oo ilaahay roob iyo raxmaad inoo shubo oo xoolaheena ilaahay mid ku barwaaqoobaan ilaahay uu siiyo gobolada Soomaaliland dhammaantood ilaahay uu gaarsiiyo raxmaadkeena naxariista ilaahay gaarsiiyo dawlad ahaanna waxaan ku dadaalaynaa inaan wixii loo qaban karo dadkeena baahan inaan u soo qabano haddii la yidhaahdo taasna waa naga go'an tahay waa loo shaqaynayo ugu dambeyntii waxaan odhan lahaa mujaahidiintii qaranka u soo halgamay allah u naxariisto ilaahay subxaanahu kuwada noolna ee ku soo gaadhay maxaan ku dhahday sama ku soo gaadhayna ilaahay subxaanahu cimriga ha u barakeeyo ilaahay subxaanahu taala madaxdii ugu horeysay ee runtii Cabdiraxmaan Tuur ka mid ahaa oo maanta lagu soo hadal qaadan dhaabacma sheekaysi ku soo qaaday isaga la mooday maalintii balgoboleeda qabsanayay ee laga qabsaday xoolaha muddada yar laakiin noqotay futuuxaad aynu ka daba guurino ciidamadii yani maxaan ku leeyahay faqashta ahaa
ظالمين تا كده بقولوا دبتنا بالجوده أن دلك بكون حرانك وقبصنا إلهي فدي ويان وحنا لا يا هو همبليو إلهي ما أنت فهنا بركة كوي كوجار سنة كيسة برواقي عفوا الله ينجي له daryahan bamaanarag gobolkii bilaa balligu bedlemaan tegin sanadku barwaaqa banka idhanka maan marin dumar baleediyo hawdo barwaaqa baryamaan dalxiis tegin bal eeg balku bedle inuu yahay berlagu nagaadiyo meel barwaaqa taalo anku bayaashe kurba joog barsoo arag anku bayaashe kurba joog barsoo arag adiloodid barafke adilowdid barafke